سبحانه وتعالى isagana ajar ha ka siiyo inagana hayna ku anfaco waxaan u yeerayaa hadda insha Allah waxa sida aad u jeedaan horta tabeelahan baa warkii meesha looga dan lahaay oo dhan warkiisa uu ku yaala waxa inoo faahfaahinaya Mr. Cabdinaasir Cilmi Faruur oo ah odayga guddiga ka tirsan gurmadka oday tafadal warahmatullahi wabarakatuh waan salaamayaa beesha reer maxamed faarax meel alle meesha joogaan insha Allah anigu waxaan ka mid ahay guddigii imaamku magacaabay oo joogay Soomaaliya gaalkacyo guddigaas waxa magacaabay imaamka waxayna ka kooban yihiin dad badan oo ilaa 12 qof gaaraya way ka mid yihiin odayga noogu weyn Cabdixakiin Ismaan ninka la yiraahdo Garjeex Farax Geelle walaalkay بلال عاد حسن حاجي هذا شيخ دون أنا عبد الناصر علم فروره أحمد دون بعلي فرحان عبد الناصر نيروبي اسمان جيل جوجعو في عبد الله قبوسة إيو عبد الكريم عبد الله عبد القري يا عبد الرحمن أول علي بري انتاس يا عبد الرزاق أحمد intaasaan ku shaqaynaynay falilah alxamdu waxay noo noqotay waxaan qabanay shaqo runtii shaqadna soo martay mid ugu adkeed markood waxaan u mahadnaqayaa raggii nala shaqeeyay oo walaalaha ahaa oo guddiyada kale ahaa oo joogay dibadda joogay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxay soo dhiibeen iyo waxay baxsheen ilaahay khayr ka siiyo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii caawiyay oo gudaha dalka joogay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa annagu walaalayaal waxaan idin sheegaynaa amaanadii aad noo soo dhiibteen ama nalku aaminay inaan ka soo baxnay sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo aan ka baqayna inaan xoogga saarnay inaan ka soo baxno maxaa yeelay sidaad arkaysaanba 12 qof wax loo dhiibay qof iyo laba qof meel waa geyn kartaa ama waa qarsan kartaa ama waa isdaba marin kartaa laakiin arrin 12 qof ay gacanta ku hayso qofna isma daba marin karo si aan hawsha aan u adkeeno darteed account-ka lacagta ay ku jirto waxa ku qoran 4 qof lacagtaas account-ka $100 haday ku soo dhacdo ama Mareykan ka timaado ama Suudaan ka timaado ama meel ka timaado qof kasta mobilkiisa message ba ugu soo dhacaya $100 waxa soo diray hebel oo ka soo diray Mareykanka account-ka ku dhacday hebel ba soo diray hadii 100 laga saarana sidoo kale afartaas qof ee account-ka ku qoran qof walba waxa uu soo dhacaya message $100 baa waxa laga saaray account-ka waxaana ka saaray hebel marka wax la qaadi karo iyo wax la bixin karo iyo wax dad kale isticmaali kara haba yaraatee ma ahayn account-ku saas u xifdisana afarta qof baa gooni ugu qornaa guddiga inta tiro la egna waxay ahaayeen guddi hawsha ka shaqaynaysa arinta horta qaabkaas ah qaabka labaad anagu waxaan xoog saarnay amaanada naloo soo dhiibtay inaan ku ekeeno oo kaliya dadka maxaan ku raad abaaraysan oo miyiga ku noolaa oo baadiyaha joogay xooluhu ka dhamaadeen ayaan anagu ku koobnay kuma aanu koobin ama waxba kama aanu siinin dadkii joogay magaalooyinka waan qadin maxaa yeelay arinta waxa nal kugu soo dhiibay ama lacagta la soo dhiibay waxay ku saabsaneed abaaraha saas darteed lacagtu waxaan ku bixinaynaa mar walba abaarahan ku bixinaynaa midda labaad ama saddexaad guddiyo badan oo Cumar Maxamuud ah waxaan halkan ka bishaareynayaa waxaanu khaasatan la sii shaqeynayay oo la sii joogay guddiyadii kale Cumar Maxamuud ayagana abaaraha ka shaqeynayay guddigeena wuxuu ahaa guddiga ugu fiican oo ugu systemka wanaagsanaa oo aan iskhilaafin oo aan isqabsanin oo hadii ilaahay ku rooyay wax dhibaato haba yaraatay is dhaxmarin ilaahay nama tusin inta marka inta kaga baxo wixii xisaab xiraha oo la sheegi lahaa walaalayaal boorkii ku qoran yihiin markooda xafladda gabagabada gurmadka waad arkaysaan abaaraha reer maxamed faarax 2017 halkan waxa weeyaan waa beesheena بخيل كم جرو بخيل بكم جرو واحد بخيل أنا بيش كجرو هوا يرهتي مجرى الحمد لله رب العالمين هل كان واحد سيجونا الله حسي قبلها سيدا جارك قبلها سيدا جارك قبلها سيدا جارك شغلة أوقفتي فاضمة قرنوب طريق عبد الشرع سعديو محمود كذا ليلى حاج على عيسى وقاسو قوري سليبان ساقو آدن عبدي حالي محمد نور أمين عبد الكريم ديرية فوز محمود قوري فاضمة خوجة فارح دقا آدن عمر سعديو قوري سليبان
gabdhaha intaa kaliya maaha way badan yihiin laakiin annagu intaan un baa hadda ka soo qaaday ragga sida fiican u shaqeeyo oo dibadda ah waxaa ka mid ah anaga gaalkacyo axmed doomba cali baa noo ahaa ninkii akoonka xisaabta hawsha wax walba noo hayay khayr allah siiyo shaqada ugu badan ninka qabtayna isaga weeye axmed doomba cali ilaahay khayr ha siiyo ها ninkaas shaqo wanaagsan buu qabtay Saciid Cabdi Dheere oo isna jooga Minnesota waa ninka saas oo kale asna dhigiisi Axmed aha oo dhinacii kale ka shaqeynayay isagana Yurubtaas Mareykankaas meel walba lacagta ka soo qaadayay ayuu ahaa walaalka halkan ku qoran waa hogaamiyaheenna guud weey oo ruuxiga ahaa weey waa ayatullah ruuxullah Khumeini geeni weey marka ninka hawsha kiciyay oo hawsha abaabulay oo ma aragtay meel walba qeyle dhanka geeyay waxa weeyaan hadii la ku roon yahay waa shaarb ilaahay khayr ha siiyo halkan waxa ku sawiran hadii la ku roon yahay raashinkii oo la qaybinayo ku sawiran biyihii iyo maartay la bixinayo halkan waxa ku sawiran imaamkii oo wadadii la furayay hadda markii laga shaqeynayay wadadii xirmatay galxamur iyo u dhaxaysay dudud isagoo ka shaqeynaya halkan waxa weeye imaam waxa taagan maxaa la yiraahdaa bilaal caad xoolihii oo maartay baqtiyay saa u dul maxaan ku raahdaa dul taagan halkan oo saas kale imaamkii oo shaqadii wada ninka hadda aswad waa garanaysaan aswad aadan cabdiwadeer asna waa raggii shaqeeyay Saciid iyo raggiisa la shaqeeyay ragga Mareykanka jooga ilaahay khayr ha siiyo aswad aadan cabdiwadeer waxa weeye asna waa ragga maaragtay aad iyo aad u shaqeeyay hawshan wax ka qabtay lacagaha ugu badan noo soo diray halkan marka walaalayaal marka u timaadaan xisaabtii halkaan ku taala xisaabtii oo halkaan ku taala magaalada USA USA halka kan bishii February waxa nooga timid 2401 Marsna waxa nooga timid oo aan ka helnay 7500 bishii Abriil waxaan ka helnay 15800 bishii May waxaan ka helnay 14420 lacagta aan ka helnay Mareykanka waa 37121 UK Ingiriiska February waxaan ka helnay $700 Mars waxaan ka helnay 1634.51 Abriil waxaan ka helnay 7200 Mars waxaan ka helnay 3990 wadarta guud oo UK aan ka helnay 17524.51 Norway February waxba ka maan helin Mars waxaan ka helnay $1700 Abriilna waxaan ka helnay $7000 May waxba laga ma helin wadarta guud oo Norway laga helay $8700 Sweden February waxa laga helay $2000 Marsna waxa laga helay $1500 Abriilna waxa laga helay $2650 Marsna waxa laga helay $1200 Mayna waxa laga helay $1200 wadarta guudna waa $7350 Zambia waxaan ka helnay Febraayo $4500 baan ka helnay $3000 waxaan ka helnay bishii Maarso Abriilna waxaan ka helnay waxba laga ma helin Mayna waxba lama helin wadartaan ka helnay $7501.50 Zambia laga helay Kenya bishii Febraayo waxba lama helin bishii Maarso waa $1900 Abriil $5100 May waxba lama helin wadarta guud ee laga helay Kenya $7000 isku taga Imaaraadka Carabta bishii Febraayo waxba lama helin bishii Maarso $200 baan ka helnay bishii Abriilna waxaan ka helnay Imaaraadka waxaan ka helnay $500 Mayna waxa la helay $600 Imaaraadka lacagta laga helay guud ahaan iswa waxa laga helay $1300 Australia Febraayo waxa laga helay $500 Marsna waxa laga helay $2000 Abriil waxa laga helay $500 May waxa la helay $1102 wadarta guud oo laga helay waa $4102 Soomaaliya waa kan Soomaaliya marka Soomaaliya alxamdulilaahi rabbil aalamiin bil kasta xil kasta anagu lacagtu waa aruurinayna wayna bixinaysaa way dilaash aad bay u dilaash Febraayo Soomaaliya waxa laga helay $4432 Marsna Soomaaliya waxa laga helay $2350 Abriil waxa laga helay $12550 May waxa laga helay $3400 lacagta guud oo Soomaaliya laga helay waa $22732 Uganda waxba laga ma helin bishii Febraayo Marsna waxa laga helay $50 intii kale waxba laga ma helin $50 baa laga helay Denmark waxba lama helin $100 baa waxa laga helay bishii
maxaa la yiraahdaa March waa 100 laga helay wax kale marka lama helin wax totalkeed waa $100 Canada waxa shaqeeyay khayr Allah siiya Abdulwali adan Sheekh Doon ba shaqeeyay lacagta inteeda badan ama kulligeed ba Abdulwali adan Sheekh Doon baa noo soo dhiibay isaga iskale waa lacagtiisii hadda Ilaahay khayr ha siiyo waxaad moodaa dadkii kale oo Canada jooga u ceeb asturay Ilaahay markaas ha u ceeb asturo marka Canada lacagta laga helay waxa weeye bishii Maarso $2,000 ayaa laga helay iyo 30 Abriil waxa laga helay $1,500 totalka guud ee laga helay Canada waa $3,500 iyo 30 totalka guud marka oo anaga aan hayno bishii Febraayo waxaana soo gaaray total guud $14,534 Maarso waxaana soo gaartay $23,965.1 Abriil waxaana soo gaartay $52,800 May waxaana soo gaartay $22,712 wadarta guud ee soo gaartay lacagta oo dhan soo gaartay waa $113,011.1 waa $113,000 iyo $12 baan soo gaartay intaas marka waa lacagihiina soo gaaray emailahina oo kala yimaadeen iyo wadamadan ka helay qaabka marka ay ku baxday iyo sidaan u isticmaalnay taariikhdu 25 markay had bishii 2017 waxaan bixinay facekii koowaad baan bixinay tirada qoysaska aanu siinay 184 qoys baan siinay 184 qoys aan siinay lacagta la siiyay waa $12,900 facekii koowaad facekii labaad waxa la bixiyay 5 bil ka bacdi baa la bixiyay 25 maxaa la yiraahdaa waxaan bixinay 25 bishii saddexaad 2017 la bixiyay oo face labaad waxa la siiyay 520 qoys lacagta la bixiyay waa $23,610 waa facekii labaad facekii saddexaad waxa la bixiyay 13 bishii afraad baa la bixiyay face saddexaad qoysaska la siiyay waa 430 qoys lacagtaan bixinayna $20,300 $20,300 ayaa la bixiyay facekii saddexaad facekii afraad u imow waa facekaas afraad waxa weeyaa 475 qoys baa wax qaatay lacagta la bixiyay $22,720 ayay noqotay $22,720 waa face afraad facekii shanaad oo hadda ugu dambeeyay waxaan bixinay 13 bisha shanaad 2017 waa facekii shanaad qoysaskan wax siinay waa 482 qoys lacagtaan bixinay $20,600 ayaa la bixiyay sidaas darteed guud ahaan lacagta anagu aan bixinay waxa weeyaan waa $100,000 iyo $130 $100,000 iyo $130 ayaan shanta face anaga aan bixin lacagtii marka balansiga iyo lacagtii koowaad lacagtii guud ahaan anagana soo gashay markay tahay $113,000.1 markay tahay markii laga jaro lacagta aan bixinay oo $100,000 iyo $130 ah waxa soo hartay $12,881.01 lacagta hadda account-ka noogu jirta marka oo aan haysano oo balansiga hadda account-ka noogu jirta oo noo dhaqan wax weeyaan waa $12,881.01 sidaas walaalayaal lacagii xaaladooda noqotay lacagaha soo gaaray guud ahaan saasay noqotay lacagahaas marka dalalkaasi loo kala yimaadeen annaguna intaasaan ku bixinay qaabka marka anagu aan ku bixinaynay haddaan wax yar ugu laabto ana xogaa ku dheeraaday idinka hore ah qaabka account-ka lacag la iskama bixinin 5 jeer baa la bixiyay saad arkaysaanba waa 5 face kasta gudigu waa fariisanayay waa ka tashanayay go'aan buu ka gaarayay cadadka dadka la siinayo iyo qofka la siinayo iyo qofka baahan markii la isla qaato oo lacagtii cadadkeeda aan isla qaadano ba iimaanka noo gudoominay iimaankan u sheegaynay haduu joogay hadii kalaba iimaanka ogeysiinay markii iimaamku fasaxo baan lacagta soo saareen xaaladda account-ka lacagta looga soo saaray saas bay ahayd gudigoo wada jira go'aan ka qaadanaya markii la qaato la heshiiyay kadibna iimaamka go'aanka u gudbinaa iimaamka markuu noo ansixiyo markaasaan lacagta soo saareynay saasaan marka aan hawsha ku wadnay halkaasina ku dhamaatay lacagta taalana waa $12,881 Allah noo kordhiyo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum ha soo gaabinayna insha Allah taala waxa xusid mudan imaaraadka waxa jirta hal gabar kaliya oo $1,300 soo dirtay ugaasa guri Saleeman afartaawij
gabadha kaliya imaaraadka jirta macnaha imaaraadka waa ardul shidaal iyo adduunka buuxa haddaa istirada badan ka jira gabadha la socda waxaa kaloo jira wiil ardaya oo beesha ah oo magaciisa diiday inuu sheego oo markaan bilaabaynay $5 si tartiiba iyagu sadaq waa soo diray khayr allah siiyo gabadhii wiilka qaaday oo hibo xirsi faradoble iyadoo tolku u duuban yahay waxay tiri tolaya ka harimay $50 ba iyadana ay hargeysa joogta naada anaga lacag ku soo wadnay marka dadka horta saas isugu duubnaa halku dhigyadaas waa kaas bulshay isku duubni ogow beesheena bakhaylba waxaan u yeerayaa insha Allah taala hadda odayaashii ka kala yimid Darawda iyo Galxamur iyo hadduu ala ku ron yahay Kuwait iyo Dudun iyo meelaha kale Damar joog waxa ugu horeynaya insha Allah taala oday walba waxa la rabaa qasadka waxa weeye dadkaas walaalaha oo inaynu u duceyno inaynu u mahad celino inaynu markaa kadib hawshaas markaynu soo gudbino baynu hawl kala galeynaayo furan ah insha Allah taala waa inuu hawlaha ka dambeeya isugu gudbi doonaa marka dhuux cali bare ha soo boodo insha Allah taala sir wuxuu ilaaway wax walbaaba hadii halkan ku qoran yihiin hadii ku yaalaan halkaan buug dhan baa ku yaala fadal عندما وحنا سلام يا قبيلك ريم محمد فارح أو يسوي من ماشان دمانتيس وحنا مهد علينا يا الله سبحانه وتعالى وحنا نقول معي وين هاي إيمانك يسلان ما ضايع ما يسرنا أنت بعد جد وحنا مهد علينا ولا له إني ريم محمد فارح وتشري الدنيا الضعفة هذا وحيابها أي نقطة تاجرين مركب النقاط كاتي حلو أبارتي العضي وحان إلهي ورجينا ذنب جود إلهي نضافه مال كودنا إلهي نبركيه أولاد دادنا باره إنه غيره دين ترسام خير قبل إلهي نكسيه أنت أصلا يجنا إن شاء الله بإذن الله كريم ساسا نقول عينيا وحي كصوب حين حل عضق أي يقول مدين دتك ولا له هذا إن كستوك قف كستوك كم درهم محمد فارح ويقال حالة معنا كتير ودن كان عد كستان وكيك قاطي قف كستو ka qayb qaatay ilaahay ajriha ka siiyo aakhiradiisa adduunkiisana Allah u hagaajiyo iimaan macnaha saadaqan Allah siiyo annagu waxaan ka imid Darawda meesha la yiraahdo magacayga oo Dhuux Cali Bare Diiriye lacagtu waxay noogu iimaan jiray meesha aan joogno qoys kasta oo kamid ah oo reer Maxamed Faarax waxay ugu tagi jiray guriga uu joogo ayaa loogu geyn jiray wuxuu qismi iyo qayb uga helo sidaa darteed dadka saa u gartay cid kasto meel kasta ka jirta hadda insha Allah ajriga xaga lay ka heli doonaan anana waa u mahad celinayna wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anu yeeraya nadaama khaliif baarleex oo ka yimid Damar joog halka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قاعد نضاوى خليش وكاين دمر شوق وحن سلامها يا أنت تل إهلك إي وراها إي إيمانك إي أنت عقلك وسليمة مروين بأ وحن أمها علينا الناه مركي حاولت نروح معتي وأي نرجع شيء فكان قاب قوسين أهلكي نوجد مدي وحنا قبتي وهنتيودي نوصل دلي ونفتودي مال قريبة نخرج يعني قم هنقلنا وأنا أي مهتسيهين وحنا ود عيننا إلهي إنه كركيره مال قريب إلهي إنه بركيه من هذا إلهي إنه بركيه مساكين صار إلهي إنه بركيه ليش يكتوله أيام إلهي إنه كتيريه قعنت ورا مدة سنة إلهي إنه كله يعني لو قد عيننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرود على الحمر رجع كيمد. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني بيشتر هم حال فارح وإذاك أهري وسلامي. سلام كذب وحن أمها الإلهية إلهي وإناء سبحانه وتعالى. ما هذا اللي وحن نغير ذاتك يا محمد فارح وأما الدبد هتشوفين أما الداخل كهتشوفيني وقتي أتكاء ولا صومري إلهي بقى واحد بدبادين بدبادين يعني ما هذا اللي نغير. والله كصدق هذا ما أيوه هرتوا أول على بريكور وذل
waxaan ka soo jeedaa hadda anoo reer maxaad faaraha misna galxamur waxaa la yidhi qofkii hal xasano falaa la yidhi ilaahay 10 xasanaad buu u qoraa baa layidhi qofkii 10 falana ilaahay wuxuu u qoraa baa layidhi 100 qofkii 100 falana 1000 baa ilaahay u qoraa baa layidhi wadaad maahay laakiin cilmi dhigoodka haya waxaan uga jeedaa waqtigii la soo maray dadkii reer maxamed faarax ama dibad ha jireen ama daakhil ha jireen dadka dibadda jira haddii dad daakhil haysan waxba ma qabteen qofkii tala ku lahaa kii ku hawshooday kii jeebka ka soo baxshay kii maalin wax yar ku darsaday kii wax badan lahaa ilaahay waxaanu leenahay ilaahay ha u lama laabo waxa ay baxsheen wax ka badanaas adduun iyo aakhira badan aakhiro ilaahay jannadii firdawsi ha ugu bashaaray adduunkana waxay jecel yihiin ha hele horta intaasaan duca ahaan u leedahay inta kale nafta ilaahay baa haya laakiin xilligii hawlahaas nagu faruurmeen oo naga macnaha waqtiga adag oo iska rabbaaniyada ay naheshay haddii aanan wadadaas noo bixin ilaahay baa wax dilay laakiin waxaan isleeyahay dad badan oo maanta nool oo beelaaho meel degan yaa rugman lahaa waxaa u sababa ilaahay weynaa ka sokow dhaqaalihii aanu helay waxtarkii aanu helay tolkii aanu helay gurmadkii aanu helay waxaaba noqonayba macnaha wax macnaha runtii dadkii aanu la joognay oo dhan ay si gaar noo eegeen oo macnaha mudnaan iyo qurux iyo sharaf iyo nolodaas ay nagu eegeen intaa waxa dheer waxa la carabka iyo uurka duca badan lacagta ayada kii biyo ku dhaansaday iyo kii bariis siistay iyo kii maalin ku qadeeyay uurkaas oo ka ducaynay inta aanu leenahay in ku jeer ka badan buulay haddii aanu reegal xamurnahay lacagtaas si qurux badan bay noo soo gaadhay si qurux badan baan u qaybsanay si qurux badan noo deeqday waxaan leenahay ilaahay wax ka weyn ha siiyo dadkii soo qoray oo soo abaabulay cabdi baaxiga xafladda sidan u abaabulan ee sharafta badan iyo imaanka iyo waftiga soconayay iyo waxgaradka odayaasha ah iyo shacabweynaha deegaanka fadhiya iyo hooyooyinka iyo walaalaha iyo gabdhaha marwooyinka ah iyo dhalinyarada ardada ah intaba waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanta u qayb badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan ahay shakiib aadan cabdi ordheer waxaan ahay kuweyt xoghaynteeda ninka joogo hadda ka warqaba baahayaheeda ama culayskeedii markaan ka hadlo waxa la ii wakiisho hadda waxa weeye inaan ka hadlo la ii wakiishay oo ah waqtigii dhacday adkaa oo sirgaxnaa oo gurmadka u baahnaa oo waxqabadka u baahnaa oo waxa nin waan noogu baahnaa tan oo kala dhacday saddexda maanta ka baxsada abaartan abaar shabahda asaan gaarin baa dhacday nin xididkiisa wuxuu yiri saddexda ka baxsada nin bah leh nin bad leh nin bir leh tan oo kala ka baxsan fiiga waxa weeye marka bahdi baan helay bad malihin haddaan nahay dadka shacabka hawsh sirgaxan abaartu meeshaan ku heshay bahdi baan helay ama ha joogto deegaanka iyo dalka Soomaaliya gudihiisa ama dunida daafeeda ha joogto meel kasta ay tahayba reer maxamed faarixi isu xilqaamay oo hawsha u istaagay oo gabdhaha lahaa oo ragga lahaa oo dumarka lahaa oo hawsha maanta inay maxamed faarix kala qayb qaataan dadkii dunyada isla lumaya u istaagay ayaan mar wada 14 ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa inta uu helay waxa noo soo dirteen oo dadka aad ugu soo sadaqayseen oo ugu soo deeqdeen oo ugu gacan qaadeen sida si u sharaf badan bay noo soo gaaray sida u sharaf badan waa u bixeen cidii aad soo warkeelateen waxaan isleeyahay waa ka soo baxday waajibkeedii maxaa yeelay wax wadada markay ku baxaan ama ku yimaadaan ama ka baxaan haddii waajib waa ka soo baxday dadka wakiilka abaarta ka ahaa oo dalka gudihiisa joogay oo dadkayga ama kasta maamulayay oo xoolaha iyo carruurtu ka daadsan yihiin waa ka soo bixeen waajibkay lahaayeen intaas waa warbixinta wixii aad soo dirteen maxaa yeelay waxaad soo dirayseen dhaqaalaha aad sheegteen oo halka 110 iyo 13 kun oo dollar soo dirteen de meel ay ku baxdaan kama idin warqabin in soo gaartay in soo gaarin war kama idin hayn
laakiin waxaa idin caddaynaynaa inay shacabka soo gaareen dadkii aad u dirteen inay soo gaariyeen dadka aad u wakiilteen inay soo gaarsiiyeen baan idin caddaynayna intaas waa warbixintii aan galabta isugu nimid xafladda idinna aan idinla baahnayn inaan idin gaarsiino taas baa yaqiinteedu tahay tan labaad markii aan idinkaga mahadnaqo horta ugu horrayn ilaahay baa mahad leh awalan ilaah baa mahad leh laakiin waxaa mahad leh waxaa la aqbalaa baa la yidhi dadka maqan ducadiisa idinkoo nala joogin oo noo jeedin oo na arkayn markaad ka danqateen waxa maanta ka jira dalkeen iyo dadkeeda oo wixiinii ku soo beesheen waqtiinii ku soo bixiseen oo juhdigiinii ku soo bixiseen ood ku badbaadiseen intii ilaah aad badbaadin karteen wixii tooda gashaan way dhinteen wixii kalena waqti wax badan badbaado ah bay ka heleen maxaa yeelay dee qof aan waxba biyo gadan karin oo raashin gadan karin oo waxba qaadan karin oo qofku ka qaadan karin markuu helo lacagta wax weyn bay u qabatay wax weyn bay tartay wax weyn bay u toosisay wax weyn baa saaka ku geeda daaqay oo ama dad ama duuya baa saaka ku geeda daaqay ma haddaan marka ilaah baa laakiin waa idinka mahad celinaynaa dadkii noocaas taasuna waa mahad celin waa idinka ducaynaynaa ducada markaan idinka ducayno waxaan leenahay wixii aad la soo baxdeen safarkuna waa dheeryahay sahaydina waa yar tahay baa hor rasuulka calaih salaam looga sheegay inuu yidhi ilaahay safarka dheer saahayda ka dhigo safarka dheer oo aakhiro saahayda ka dhigo marka labaadna ilmaha waxaan maqalay oo hadda walwal weyn ugu haya ama ugu walaab dadkiina annaga hadda waxaan soo halkaa jooga aad carruurtu inay maartay xoogaa idinku adag tahado annagu koy waan dhagayn waan dilaa ayagoo daqrana waa ka tagaa laakiin idinku waxa xagga u laxmo oran kana waa leen dacweynaya ilaahay ilmihi naagaha baa hidiin dile sidin waa hidiin dabci baalan ku jira hadda jawr hagooda haw dabceen ha ka basan ayni soo dab ha ka maqan waxa weeye marka ilaahay ilmaha haydin toosiyo haydin hagaajiyo aakhirada haydin hagaajiyo adduunka haydin hagaajiyo ilaahay kuwii adduunkana liibaan aakhirana liibaan haydin ka yeelo waxa aad ka cabsanaysaan allah idin ka dulqaado waxa aad ka cabsanaysaan on anna wadina duco wadina leena waxa wixii cabsiyo aakhirana allah haynoo fududeeyo intaasuna waa inta duco inta labaad haddii meesha aan ka hadlayaa waa magaalada Sheekh Kuwait iyadana waxay war ay leedahay waa u noqon doonaa waqtigeeda u noqon doonaa dhagoole soo dhawow maanta oo dhan bismillaahir rahmaan maasha Allah waxaan sidaa u leeyahay waa sharafta badan oo Maxamed Faarax oo hoos fadhida iyo sharafta badan oo banaanka ku maqan oo reer Maxamed Faarax waa maasha Allah hadallada intii aan oran lahaa ama meesha ku jiray rag horaa ka hadlay waxaan ku daro badan uma harin waxaan u ducaynaynaa dadka daafaha adduunka dadka jira oo soo gurmaday ama gudaha ka soo gurmaday ama bannaanka ka soo gurmaday waa u ducaynay waana u ducaynaynaa ilaahay iimaankooda saraca ka dhigo dadkooda iyo dunyadoodana allah barakeeyo waxaan mar labaad u ducaynaynaa kuwa gudaha nala jooga oo qoosha saxda ah oo xogogaalnimada ah oo ehelnimada ah oo ninba nin sidii uga liitay uga warqabay oo waxay hayeenna soo bixiyey wixii loo soo dhigayna gacanta ku qabtay sida fiican oo ay u galeen oo xogogaalnimada ugu bixiyeenna ayagana ugu mahad celinayna waxaanu leenahay ayagana dadkooda iyo dunyadooda aakhiriya adduunba ilaahay barkay inta yadaa fadhidaa waxaan faatixada ugu maraynaa nin qof reer Maxamed Faarax oo markii masiibaa dhacday markay dhacday qofkii soo gurmaday af iyo adin iyo anfac qofkii u soo gurmaday iyo qofkii aan waxba haysanoo la joogay waxaanu u ducaynaynaa reer Maxamed Faarax meeluu joogo sida fiican oo ay yeeleen sida deegaamada kale annaga nagu kuunyaan sida dadka kale nagu kuunyo sida dhalashada dadka nalalo nagu kuunyo ilaahay siday u soo baxeen ilaahay kor ha uga dhigo ilaahay waxaan ugu barinay siday u soo baxeen ilaahay kor uga dhiga intaa kadib waxaa jira wax adag oo sidii xoogaa ka sahlan sidii xoogaa bay ka sahlan xoolihii waxaa harayna naq bay daaqayaan waa u dhigannahay wixii harayna naq bay daaqayaan cadna ma leh caanana ma leh haddaad moodeen marka horeba dunyo u dadaalay aydan mayne waxaad u dadaalaysaan waa dadka iyo ilmaha iyo naagaha iyo odayaasha
haddee waxaanu idin leennahay dadaalkii ma harin waa u baahannahay noo soo dhaqsada suuqaa gadaal u noqda qoladii aad awal wax noogu soo dhiibi jireenna soo gaabiyaan waxaa ugu dambaynaya xuseen xaashi xuseen xaashi waxaan salaamayaa qabiilka reer maxamed faarax oo sharafta leh oo golaha isugu yimid oo aan awal isugu imaan jirin allaha weyn oo waaxidkaa isugu keenay waan u mahad celinaya alxamdulilah iyagana waa ku farxayaaye allaha sharfiyo waxay isugu yimaadeen wixii u yimaadeen haddana u fadhiyaa wixii horay iyagu ay isugu taxallujiyeen way isu abaabuleen eelkooda iyo dadkooda abaaraysan oo abaartu wiiqday ay uga tashadeen haddii lay ku roon yahay guddiga abaaraha waxgaradkii dhallinyaradii odayaashii uquushii ayagu xil iska saareen sidii ay uga qaban lahaayeen abaarta baanu xasiibtay dadka iyo dalka marka isla helana waxay ula gudbeen waxaan ugu mahad celinayaa ula gudbeen warba joogta dhammaan waxay isla heleen inay dadkooda ku qabtaan allaha ka abaar waa u qabteen waa soo gaareen waa haddii la kula ku barwaaqoodeen ilaahay baa ugu mahad celinaya iyagana allaha ka abaalmarin iyaga iyo waalidkoodii iyo waalidiintoodiiba alla ka madaxoodana allaha ku raaji muraadadoodana allaha ku sahlo saasaa ilaahay ka barinaa inta reer maxamed faarax oo meesha fadhida waalidkooda iyo waalidiintoodii iyo waalidood dambigooda allaha dhaafo muraadkay sanay doonayaan isaga macsalay midka allah ka siiyo midkaan isugu nimidno hadda u wada fadhiyana ilaahay maqbuulaha looga dhigo sidii u sharaf badan allah noogu dhammeeyo saasaa ilaahay ka baryaya warba joogta waxaana xuseen xaashi doobi oo 80 jira midda maanta joogta weligay ma arag yama hor imaan waxaase aragtideedii ka bedeshay dadkii arkay oo eelkaa oo waxgaradkaa oo iimaanku hogaaminayay oo haddii lay ku roon yahay meel walba u gaarsiiyey arrinta isagii iyo saacadtii iimaanka uu meel walba gaarsiiyey waana soo gaareen wixii aad hoos ku soo gasheen isku taxallujiseen allah idinka abaalmarsho saacad ka badan allah idin siiyo ilaahay saasaanu ka barin wax ka badan allah idin siiyo cadaabkiina allah idinka dheereeyo aakhirana filjanna adduunkana filnima qabiilka dhan allah siiyo mid joogiyo mid maqanba arrinteena la tii soo ururta oo mahadle allah ku dhameeyo intaasaan kaga baxayaa cabdiweli ana sheekh doon fadal alxamdulilah rabbilcaalamiin wax kale uma istaagin arrin aad ii farxad gelisay oo aan jeclaan lahaa in aad loo faafiyo arrintaas waxay odhanaysaa marar badan baan raadiyo waxaan ka maqli jiray beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan beesha caalamka waxaan u sheegaynaa arrintan looma dhamma beesha caalam wadnihi baa iga qabatay marka maadaama imaamka mar wuxuu lahaa wuxuu iyagoo saa u yarbay markay barakaysan yihiin ilaahay barakeeyo iyo barakood yacni haddeer weli maskaxdaydu waa qaadan la'adahay lacagta intaa la eg inay dadkii ku filnaatay laakiin waa ilaahay fadligiis isagaa ku filnaysiiyey haa marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego anna aan isu sheego maanta laga bilaabo hay-adaha adduunka waa ka xorown ilahay waa naga xoreeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah baa mahad iska leh ilaaha inoo gartay inaynu galabta halkaan isugu nimaadno innagoo isugu nimid abaartii muddada socotay oo ilaahay inuu ka nabciyey roobkayna siiyey dadkii wax inoo qabtay munaasabad halkaan u samaynay inaynu gaarsiino wixii ay inoo soo direen inaynu uga mahadnaqdo inaynu gaarsiino horta ilaahaasaa mahadle uma waxaan u mahad celinayaa dadkii reer maxamed faarax dibad iyo daakhil meel walba ha jireen horta xoolahaan hadda aad arkaysaan alxamdulillahi rabbilcaalamiin reer maxamed faarax kaliya xataa ma helin dad badan oo qoysas ah oo magaalo walba inala jooga dad bay wax ka gaarayay ma rabna hadda inaan sheegno khayrka aanu bixinaynay iyo dadkaanu siinaynay laakiin dad kasta oo daris aan ognahay inay sidaan inagu u baahan yihiin waa lagu daray taa horta dadka bannaanka waa u sheegaynaa waxoodu inay reer maxamed faarax kaliya gaarin dad badan oo baahan oo ehelo reer maxamed faarax la jooga inay gaareen waa gaarsiinaynaa waxaan leenahay maalkooda naftooda xoolahooda kulli allah barakeeyo ilaahayna waxa weeye sadaqa allah uga dhigo jaariya oo ilaahay xasanaadkooda ha ku kordhiyo aakharana cadaabka kaga xoreeya jannadiina ha ku siiyo inta weeye inta labaad
waxaan markhaati ka nahay waxaan idiin sheegayaa horta arrinkaa markaan bilaabaynay shayga waxaan la hadlay waan garanayaa habeenkii waxaan joogay riig oomane gurigaygaan joogay markaasaan waxaan la hadlay bilaal qof barakaysan haddaad la hadasho ninkaa khayr buu qabaa khayr ugu duceeyey khayr allah siiyo bilaal khayr allah siiyo bilaal baan la hadlay markaasaan waxaan idhi hawshaasaynu bilaabaynaa akown baan furanaynaa guddi baynu qabsanaynaa hawsha saasaan u galaynaa hawsha waa hawsha hadda halkaa maraysa aniga iyo bilaal aanu hadalka taleefonka isku xiriirnay waa hawsha intaa gaadhay horta arrinta alla waa barakeeyey ilaahay khayr haynoo ka dhigo waxaan kaloo meeshaan aan aada uga mahad celinaya xasan xaaji aadan sheekh doon isagoo ah weliba dadkii gudaha joogay buu haddana dadka dibadda jooga ahaa markaasuu masaraa guruubyada wuxuu u ahaa ninka diinta iyo dacwada aayaadka sadaqada keliya u qori jiray aayaadka sadaqaadka weliba saasoo ay tahay qofku markuu isagu wax bixiyo wax bilaabo yaa lagu daydaa dadka iskama baryeyne walaay anigu intaasaan ku yaabay maxaa ku darteen buu lahaa u duceeye marka isagana cabdiweli khayr allah siiyo isaga iyo dadkiisa lacagtaa waxaa soo diray isaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa kanada reer kanada aad arkaysaa waa caruurtiisa iyo xaaskiisa isagana khayr allah siiyo markaasaa leeyahay shakhsiyaadka taargetka waxaan tooganayaa arrinta maaragtay rag ninka halkaan ku qoran waxaa la yidhaahdaa shaarub yaasiin maxamuud faarax barre barnaamijka laftigiisa barnaamijka xaaruf baa loo baxshay maadaama isagu aada u ololeynayay ninkaani qof walba oo gurigiisa wuu ugu galay taleefonka isaga lacagtiisa la baxayey waa gubaabinayey waa la hadlayey magaalo uu la hadlayey guruub buu la hadlayey ninkaa madaxiisa الله الرج خير الله سي الله بركي رجع برهان فوتشاله رجع عبد الشكور عبد الويرحلي ما مياه سوكو بكرا نيك اللي يراهد عبد العزيز عيسى الدين رجوا وترب ذي قبلها كلي الله شيء ما يا أسود يكابياش على الكاري كقولين واركيس يكابيالو لكن رجع إلى شيء باشيجية وعند الله يا مركا ورت أنتاس وينور دعضي سيف عم بينو كل دعضي ما أنت عبد الولي بركو ويدي ورا لعبت ويرتاح لعب كبر وعن وقومها ما حلو وعن كويري وأريدي نبي وعن هذا كتاب تاني وكذا لعبت أنا وأنا زيدي زيدي ما لعبت أنا نقط عد لو درينا ما بتشرتو أما أنا قبضنا أما أنا غيرت وعن أركي يبير أنا قبضنا فرد الله من يدك إنك نقول هيرك وير بفرد الدولار قادني شنتها فيس الحمد لله رب العالمين الحمد لله انت وي waxaan idin sheegayaa hal qodob yaan dadka dibadda iyo raggiina halka fadhiya iyo inta maqli doonto aan ku gubaabinay waxa idin kamid ah rag hadda fadhiya iyo rag maqanba waxa kamid ah rag tujaaraha baa jira oo xoolaha 1500 arigoodu haduu rabo uu gaaray 700 buu gaaray 1000 buu gaaray 200 halaad buu gaaray maantana waxa suurtooda ninkii inta lahaa 30 ariya inuu ama kaartay ama 40 kaareen ama ay ka hareen وعن نفله عركا روبك كإيمانية وإلهي سدو ربو فعلوا اللي ما يريد إلهي سدو ربو يليو وعلى ربا قفكو إنو أسبابتي أولي بهذا النلشة كوري واسبيا وعي هذه المصيبة الدنيا ده يضع معلمة مركا نبي ماذا يحلكو يمانا ما أنت حتى نبكي يمد وعلى الربا عبرة ذاتكينا ومقت وعلى الربا سببكي وحانو كلا دي مادان لوغا قاشا من الله هذا سيدا لوغا قاشا كان waxaan reer maxad far عليه ragina jooga iyo inta maqan waxaad xoolihiina way dhaafeen caruurtii way idin la joogaan iyagoo waxba aqoon diinna aqoon adduunyana haye kaliya xooluhuna waxay ahaayeen waxaad ku faantaan caruurtuna waxay ahaayeen waxaad ku faantaan tii caruur leeyahay toddoba intee baa rag wala soo weydiinaya la soo intee baa shan والله وافعين وتربي رجو انت قرأ هذا وحي قرأ اسكالي يجيني ما حي قرأ كله dadka ilaahay la baraar diinta ila baraal rabo iskoolaadka iyo wax laga baraal rabo qorshaha hadda socda iyo faceka dambe oo reer maxaafada dibadda jira iyo kuwa gudaha jooga qorshaha hadda la rabo in loo gudbo waxa weeye sidaa dadkiinii wax ku baran lahaydeen in la idinka caawiyo dadkaanu waad aragteen nin wax bartay idinku soo noqon mayo isagaa iska tegaya mana kacaysaan idinku waxaa hadda wax idiin soo dirdiray
wax kharashoo idinkaga baxay ma jira meelahaas intay iska looxjiitay buu iska tegey kabacdina ilaahay baa waafajiyey inuu wax idiin soo diro waxaad u malayn lahaydeen haddii dad badan aad waxbari lahaydeen oo maanta boqolaal baynu maanta heli lahay waxaan leeyahay carruurta inu waxbar xoolahaanna wixii hadda ka dambeeya waa inay idiin noqdaan waa inaydnaan iska haysane markay 100 gaaraan 50 waa in wax ku qabataan 2 qol laga dhisaa carruurta la soo xareeya adiga iyo wiil iyo gabar haddaad rabtaan ku hara oo ka weynaaday waxbarashadii haddaad rabtaan laakiin inta waxbaran kardha soo xareeya weliba waxaan idin kula talinayaa magaalada Kuwait carabka hadda reer maxamed farax dadka banaanka ku haya inay wax ka qabtaan bay rabaan in iskoolaadka la dhisaan rabaa bayna waydi dhisantaa wax iskoolaadkii sidii la dhisaynay bay magaaladan waa ka weeyay magaaladan iyo iskoolaadka bayraad baa weey keena magaalooyinka bayra keena Kuwait keena gaalkacyo keena burar keena tan ay ku dhib yar hadda intiina aan ka bixi karin oo maarta carruurta iyo ariga idinku waxbarashada macallimiinta raggaas la harjadaya reer maxamed farax idinku bariiskooda iyo wixiina waxaysta waa la ka bixinaya macallimiinta iyo fiigo carruurta waxbarasho keena xoolahan abaar baa ka dambaysa xoolahan haddii alla idin soo gasho kala qaybsha oo kala qorsheey oo abaarta wax ugu talagala oo dooga wax ugu talagala oo ganacsiga wax ugu talagala waxa sakada waxa koobaad oo la rabo haddii hadda roob waxyaalaha hadda ay ku taddaarmeen dadka xoolaha ina soo siiyey oo ina la dadaalay waxa ka mid ah sakada inaynu isku meel ku aruurino wala daday hadalkaas sakada inaynu wada aruurino maalin walba sakadeenu waxay ku filan tahay 100 cayra inay min 40 neef oo saka wasiin kara 100 reer oo cayra min 40 neef oo saka goysa waynu siin karnaa sanadka dambe sakada iyaga wax ka bixinay 100 kale markaas 100 kale maalinka dambe maxaa islaamku ku gaaray in waxba maarta la waayay waxa lagu gaaray dadkii orama wax laga soo saaray inay faqiir ba ahay dhowr sano hadaynu sakada inta isku darno maalinba aynu intaas hor reer siino waxa weey dhowr sano ka bacdi kulligeen waxaan noqonaynaa saka bixiyaal bay noqonaynaa waxaan idin dardaarmayaa wixii aynu helnana ina ilaahay ugu dhawaano cibaadaysano diinta barano diintu 3 sano baa nabi maxamed 40 sano baa diinta lagu soo dejinay 10 sano oo kamid ah dadka ilaahay la baray balday wax xukuna iyo wax kale iyo xaaje kale midna ma la ilaaha illa allah muhammad rasuul kaliya dadka la baray 3 sano oo kalena cibaadaadkii iyo muxuu ahaa fiqigii iyo hawlahaas la baranay anu waxaan leeyahay diinta waxba kama inuu naqaan ma garanaysa nin baa waxa leeyahay nin gaala wuxuu ku yiri diintiina ma iga warrami kartaa suu yiri ha suu seeta diintiina suu wallahi waa wax fiican suu bal wax iga sheeg illa xabadna kama yaqaan suu iyo war diinta iyada miyaan ku sheegi karaa war waa wax fiican anti inta ka baqaa hada wax fiican anti ka badatay maanta ag taagna war hada wax ku dar wax fiican anti ka badatay wax ku dar waa male waxa kale ma inagu aan ognahay inteena badan wax fiican anti ka badatay baynu ag taagna waxa ma naqaan diinta la bartay بالله عليك دينتا إنه برن وليبا أنت واجباتك وصلاة وصومك وسكده ما قرأت ولا برتا وتوحيدك ولا برتا ما فاهم يسا وأنا كجود منها ماشي إنه كده كنا أوه فرح شروعه يا أوه محاد فرحه ولا يجود بإله وين اللي هذا وهذا كذا بيوجاني سنة كان بيوجاني وعن الله هنا وحتري أنا هتري كذا واحد اللي يقوم بالمرسوان شري يميري اللي سومر في شري كل اللي بيسوونكم ما قرأت يسا وأنا ما تعلق كريم aynu noqonay ilaa ka barina baan hadalkeena ku soo gabagabeynaya waxa inoo ballana diin iyo waxbarasho iyo dhaqan fiican dadku aan nabad gelino inagoo is nabad gelina